Hello, assalaamu calaykum. Waxaan doonaynaa inaan kasii wadno meeshan casharkii aanu akhrin jirnay maalin walba oo talaadada ah. Casharkan maanta wuxuu ku saabsan yahay waa af Soomaali kaliya. Waran dheer. Erayada raaca erayga waxa weeye erayada wax sifeeya. Tusaale ahaan waran waa magac, dheerna waa sifo. Waran dheer. Dermo dheer. Dermo caws ah. Dermo ballaaran. Dhul dheer. Dhul ballaaran. Haddaad fiirisid erayga waran, dermo ama dhul waa magacyo. Erayada sida erayga dheer, caws ah, ballaaran, erayadana waa sifeyn oo waxay sifeynayaan erayga nafsad ahaantiisa. Marka aad eray marka sifeynaysid waxaa loola isticmaalaa sida luqadda kale ee Ingiriiska ahba erayga iyo sifada oo ah adverbka. Waran dheer, dermo dheer, dermo cawsa, dermo ballaaran, dhul ballaaran. Erayadii ayagana haddana mar kaligood si gooniyo u qoran waa kuwan: waran, dermo, waran, dermo, dhul dheer, caws, ballaaran. Waran, dermo, dhul dheer, caws, ballaaran. Waran dheer, dermo dheer, dermo cawsa, dermo ballaaran, dhul dheer ama dhul ballaaran. Sidoo kale adigana waxaad isku daydaa in aad qortid erayo iyo sifooyinkoodaba oo halka hoose ku qor, sida gaari weyn, wiil dheer, dhul dheer ama ballaaran, guri weyn, nin oday ah, gabar yar. Sidaasoo kale erayo iyo sifooyinkooda halka hoose ku qor. Alxamdulillah.